Waxtarka caafimaad oo laga helo afakaadhada ayaan ka hadlaynaa. Waxa koowaad oo laga helo afakaadhada aad iyo aad waxay ugu wanaagsan tahay dadka sokorta qaba, maxaa yeelay waxay yareysaa waxa ku yar sokorta, fiibaro ayaa ka buuxa. Sidoo kale afakaadhada aad ayay ugu wanaagsan tahay dadka sokorowga qaba. Waxay aad ugu wanaagsan tahay caabuqyada gala kala-goysyada, oo waxay sidoo kale ka caawineysaa haddaa cuntid afakaadhada ama ka samaysatid salaato waxa loo yaqaano caloosha fadhida, maxaa yeelay qani ayay waxay ku tahay fiibaro. Sidaa daraadeed waxay caawineysaa shiididda cuntada, waxay ka ilaalineysaa waxa loo yaqaano caloosha fadhida. Waxay aad iyo aad ugu wanaagsan tahay afakaadhada waxa loo yaqaano hooyada xaamilka, maxaa yeelay waxay qani ku tahay fitamiino iyo folic acid iyo waxyaabo aad u tiro badan. Afakaadhada waxaad ka samaysan kartaa salaato oo amase cabitaan ayaad ka samaysan kartaa. Waxaa ka buuxa waa ilaha laga soo xigto waxa loo yaqaano potassium-ka. Waxaa ku jira potassium ka badan midka laga helo muuska. Sidaa daraadeed waxay aad ugu wanaagsan tahay dadka dhiig-karka qaba iyo dadka wadne xanuunka qaba. Wadnaha way u fiican tahay maxaa yeelay waxaa laga helaa dufan aan waxyeello lahayn. Aad iyo aad ayaa waxa ugu yar kolestaroolka xun. Sidoo kaleeto kolestaroolka fiican ayay siyaadisaa. Saad ogtihiinba afakaadhada waxaa ku jira fitamiino, sidoo kale waxaa ku jira antioxidant aad u xoog badan, waxaa ku jira potassium. Sidaa daraadeed aaday ugu wanaagsan tahay caafimaadka wadnaha, dadka dhiig-karka qaba, dadka sokorta qaba. oo dadka sokorta qaba afakaadhada sokorta ku jirta wax yar oo been ah waayo. Aad iyo aad ayay ugu wanaagsan tahay dadka dhiig-karka sokorowga qaba. Runtii waxaa ku jira afakaadhada waxaa laga helaa fitamiino kala duwan. Waxay u fiican tahay maqaarka, tinta. Waxaa ku jira fitamiin E, fitamiin C, sidoo kale waxaa ku jira fitamiin B6. Afakaadhada aad iyo aad ayay waxay ugu wanaagsan tahay aragga. Waxaa ku jira fitamiin C oo sidii beta carotene ah, aragga ilaalinta aragga geesaheeda u fiican tahay. Afakaadhada cabitaana ka samaysan kartaa, salaata ka samaysan kartaa, sideeda ayaad ku cuni kartaa. Aad iyo aad ayay caafimaadka ugu wanaagsan tahay. Dadka miisaanka iska dhimaya haddaa cuntid waxay ku dareensiineysaa inaa calooshaada maanta dhergsan tahay, cuntada kaa yaraanaysa. Laakiin iska ilaali waxa aad ugu badan waxa loo yaqaano kaaloriga ayaa aad ugu badan afakaadhada. Markaa rabtid inaa cuntid waa inay bisishahay, laakiin iyadoo ciriina dhadhan ma lahan. Laakiin salaato macaan aad ka samaysan kartaa, salaatooyinka aad ku darsan kartaa. Runtii aad iyo aad ayaa waxay afakaadhada uga buuxa antioxidant aad u xoog badan, ka hortaga xanuunada kansarka iyo waxa lamida. Ilaahay naguma rido, inta qabta allaha ka caafiyo. Afakaadhada waxay ka caawineysaa inuu soo dhuuqo jirkaaga fitamiinada nafaqada ku jirta. Runtii aad iyo aad ay ugu wanaagsan tahay, oo waxaa kaaga filan dufanka ku jira inuu yahay mid caafimaad leh. Sidoo kale waxay ka buuxa waxa loo yaqaano magnesium, waxaa ku jira potassium, waxaa ku jira beta carotene, fitamiin B1 iyo B6 baa ku jira. Antioxidant aad u xoog badan ayaa ku jira. Sidoo kale wax yar oo waxaa ku jira karbohaydrayt aaday u wanaagsan tahay, ka faa'iideysta. Runtii caafimaadka aad iyo aad ayay ugu fiican tahay. Intaan isku arkayna video kale intaasaan idinka tagaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.